waxaan ahay Salaaxuddin Soomaali haddii ay tahay markii ugu horreysay oo internetka isku aragno waxaan sameeyaa muuqaalo la xiriira tiknoolajiyadda dhaqaalaha iyo weliba ganacsiyada online-ka ah waxaan isku dayaa in bulshada Soomaalida ah aan u soo gudbiyo barnaamijyo ay si fudud ugu fahmi karaan waxyaabaha la xiriira tiknoolajiyadda haddaba muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa wax walba oo la xiriira smart contracts ama heshiisyada digitalka ah iyo wax walba ay tahay inaad ka ogaatid erebixinta smart contract waxa markii ugu horreysay taariikhda isticmaalay Nick Szabo 1997 ka hor intii aan Bitcoin la abuurin wuxuuna ahaa caalim dhanka kombiyuutarka ah sharci yaqaan iyo cryptographer smart contractsku waxay la mid yihiin contractska ama heshiisyada caadiga ah ee adduunka dhabta ah kaliya waxay kaga duwan yihiin inay yihiin digital ama code wax ku qoran oo kombiyuutarada aan soo dhaafin micnaha smart contractsku waa program computer oo ku kaydsan blockchain-ka dhexdiisa haddii aadan aqoonin blockchain hore ayaa uga hadalnay ka daawo muuqaalkan ama linkigiisa ka eeg qaybta description-ka si ay u fududaato inaad fahamto qaabka ay u shaqeeyaan smart contractsku waxaan rajaynayaa inaad taqaan websiteska loo yaqaano crowdfunding-ka ama dadka mashaariicda wata balse aan haysan ra'sumaalka ay ku bilaabi lahaayeen loogu ururiyo dhaqaalaha kuwaasoo ay ka mid yihiin Kickstarter iyo GoFundMe websiteskaas waxay u shaqeeyaan sidan tusaale ahaan waxaad rabtaa inaad bilowdo mashruuc ganacsi kaasoo ah dhisidda dugsi lagu barto tiknoolajiyadda qaybaheeda kala duwan laakiin ma haysatid dhaqaalihii aad ku bilaabi lahayd kadibna mashruucaaga xogta lagu faahfaahinayo iyo lacagtaad u baahan tahay cadadkeeda ayaa la wadaagaysaa website-yadaas halkaasaana lagu soo daabacaya waxayna kuu qabanayaan waqti kooban oo ah bil ama asbuuc iyo wixii la mid ah si uu u soo dhammaystirmo cadadka lacagta aad dalbatay dadka taageersan mashruucaaga marka ay arkaan boostiga amaba qoraalka website-ka waxay awood u leeyihiin in ay ku bixiyaan mashruucaas hadba intii ay awoodaan ilaa laga gaarayo xaddigii lacageed adiga aad u baahnayd haddaba haddii ay macquul noqon weyso in uu dhammaystirmo xaddigii lacageed oo aad adigu u baahnayd GoFundMe waxay samaynaysaa in ay lacagaha dadkii lahaa u celiso balse haddii uu dhammaystirmo waqtigii loogu talagalayna uu ku dhammaystirmo waxay ku siinayaan lacagta si aad ugu qabatid mashruucii aad ugu talagashay marka aan qaabkaas u dhigno GoFundMe waa qayb saddexaad oo aan ahayn dadka mashruucan lacagta ku bixinaya iyo dadka lacagta u doonaya labadaba waxaana lagu aaminay in ay hayaan fundiska mashruucan lagu maalgelin lahaa inta uu ka dhammaystirmayo labada darafna way ku kalsoonaadeen haddii mashruuca lacagtii loogu talagalay ay dhammaystirmato dadkii mashruuca waday ama qofkii mashruucaasi waday wuxuu ka filayaa GoFundMe inay lacagtiisa asaga siiso laakiin haddii ay taas dhici weydo dadkii lacagta hore u bixiyey waxay ka filayaan GoFundMe in ay lacagta u celiso labada dhinacba way ku kalsoonaadeen GoFundMe haddaba markaan smart contractska adeegsanayno waxaa meesha ka baxaya qaybta saddexaad oo la mid ah GoFundMe iyo website-yada kale ama cid kasta oo u dhaxaysa labada qof ee heshiis galaya waana tiknoolajiyad loogu talagalay inay qaybtan meesha ka saarto oo aysan jirin cid lagu kalsoonaado oo la mid ah GoFundMe Kickstarter iyo cid walba oo dhexdhexaadin qusaysa smart contractsku marka ay soo buuxiyaan qaybtii saddexaad booskeeda hawshu waxay isku beddelaysaa qaab automatic ah maadaama smart contractski ay ku dhisan yihiin blockchain ma jirto cid gaar ah oo mas'uul ka ah hawsha lagu qabanayo smart contractiga dadka taageeraya mashruuca waxa ay u dirayaan lacagta smart contractiga haddii waqtigii loogu talagalay ay ku dhammaystirmato lacagtuna waxa ay si toos ah ugu dhacaysaa lacagtii adresska qofka mashruuca waday haddiise ay taasi dhici weydo waxay si automatic ugu laabanaysaa adressyadii awal hore laga soo diray waxaa laga yaabaa hadda inaad isweydiinaysid oo haddaan kalsoonidii kala noqonay shirkadihii dhexdhexaadiyaha ahaa ama qaybta saddexaad ku jiray maxay tahay sababta ugu kalsoonaanayna smart contractska waayo ayaga weli booska dhexdhexaadinta ayay ku jiraan waa su-aal fiican haddii ay maskaxdaada ku wareegayso sababtu waa in smart contractsku ay ku kaydsan yihiin gudaha tiknoolajiyadda blockchain-ta ayna leeyihiin laba sifo oo cajiib ah midda koowaad waa in ay yihiin maguuraan waxba lagama bedeli karo marka la abuuro cidna kuuma dabamari karto sifada labaadna waa in la qaybiyo oo ay u baahan tahay dhammaan in dadka networka ku jira ay xaqiijiyaan hal qof ma fasixi karo dhammaan dadka networka ku jira waa inay wada aqbalaan taasna waxay meesha ka saaraysaa inay wax faragelina ku sameeyaan qof ama koox gaar ah tusaalahaas hore ee crowdfunding-ka keliya looma isticmaalo smart contractska waxyaaba aad u badan ayaa looga faa'iidaysan karaa sida cryptocurrency-yada in lagu kala wareejiyo ama nidaamka token switching-ka guryo inaad ku iibsatid si fudud bangiyada sidoo kale way isticmaali karaan sidoo kalena shirkadaha caymiska ayaa ka faa'iidaysan kara tusaale ahaan shirkadda caymisku waxa ay samayn kartaa smart contract aad u fudud oo ah haddii geedi uu shirkadda caymiska ku darsado $10,000 isla markaana beertiisu aysan samaynin wax soo saar ah laba xilli beerasho oo isku xiga geedi waa in la siiyaa $20,000 waxaa xogtaasi smart contractiga siinaya Oracles oo ah tool ama aalad smart contractska siisa xogta saxda ah ee adduunka caadiga ah adigu sidee u samaysan kartaa smart contract waxaa jira blockchains aad u badan oo ilaa hadda lagu dul dhisi karo
smart contracts. waxaase ilaa hadda ugu awood badan Ethereum blockchain oo ah blockchain si khaas ah loogu diyaariyay in lagu dhiso smart contractska. waxaa jira luqad programming ah oo loo isticmaalo in lagu qoro smart contractyada oo lagu magacaabo Solidity, waxayna si khaas ah ugu shaqeysaa Ethereum blockchain. sidoo kale Bitcoin blockchain ayaa lagu dhisi karaa, laakiin marka loo eego Ethereum aad ayay u xadidan tahay. waxaan rajeynayaa inaad wax badan ka fahantay mawduucan ku saabsan smart contractska. haddii ay jiraan dad asxaabtaada oo is leedahay muuqaalkan way ka faa'iideysan karaan, fadlan la share garee.